madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya ayaa soo gaaray xarunta gobolka Togdheer ee magaalada Burco iyadoo soo dhaweyntaasi ay ka qayb qaateen maamulka gobolka kan degmada dhalinyaro cuqaal iyo haween aad u fara badan madaxweynaha ayaa laga hortagay degmada Qoyta oo dhinaca galbeed ka xigta magaalada Burco waxaana loo soo galbiyay fagaaraha xarunta madaxtooyada ee gobolka iyadoo halkaas ay ku sugayeen dadweyne aad u fara badan oo soo dhaweyntiisa u diyaarsanaa madaxweynaha ayaa salaan sharaf ka qaatay cutub kamid ah ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana madashaasi ugu horeynba ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi maayirka degmada Burco Maxamed Muraad iyadoo ay si diiran u soo dhaweeyeen madaxweynaha waxayna yiraahdeen sida tan madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanta safar inoogu yimi safarkaas oo ugu kuurgarayo xaaladda nololeed xaaladda guud ee dhabta ah ee ka jirta gobolka Togdheer iyadoo hawsha qaranku ay badan tahay madaxweyne waan kaaga mahadnaqaynaa safarkaaga aad noogu timi aad baan idinku mahadnaqaynaa taariikhda inta la og yahay waa soo dhaweyntii ugu mudnayd ee ugu quruxda badnayd ee ugu qiimaha badnayd soo dhaweynta maanta aa u samayseen madaxweynaha qaranka Muuse Biixi Cabdi mar iyo laba iyo saddexba dadweynaha reer Burco waan idinka mahad celinaynaa wafdiga madaxweynuhu hogaaminayo waxaan leenahay ku soo dhowaada gobolkii Togdheer gobolka ragga dhinaca kale waxaa madashaasi ka hadlay wasiirada arrimaha gudaha iyo caafimaadka Soomaaliland iyagoo dadweynaha magaalada Burco ku amaanay sida heerka sare ay u soo dhaweeyeen madaxweynaha qaranka iyo wafdiga uu hogaaminayo waxayna yiraahdeen sida tan waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha reer Burco ee sharafta leh sida ballaaran ee ay ugu soo dhaweeyeen madaxweynaha maanta socdaalka iyo booqashada ugu yimid reer Burco waxaan xasuusinayaa magaalada Burco halganadii kala dambeeyay ee Soomaaliland soo maray ee ilaa iyo Ingiriiskii waa meelihii ay ka abuurantay halkii Soomaaliland lagu asaasay ee go'aanka lagu gaadhay waa guriga inaga dambeeya indhahaaga magaaladii Burco loo kala harin iyadoo mid ah Burco daamal kala lahayn baarlana kala lahayn mucaariye muxaafid kala lahayn ayaa dhammaan gacmo furan kugu soo dhaweynaya maanta waxay taasi markaad ka tahay inaad mucaarid iyo muxaafid madaxweyne u tahay oo lagu soo dhaweynayo meel walba reer Soomaaliyeed joogaan Soomaaliland gabagabadii madashaasi waxaa soo xidhay madaxweynaha qaranka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isagoo soo jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa waxaana uu ku dheeraaday arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha gudaha wuxuuna soo qaatay colaadda bariga Soomaaliland wuxuuna baaq nabadeed u soo jeediyay beelaha walaalaha ee dhawaan dirita colaadeed ku dhex martay deegaanka Dhumay isagoo amuurtaasi ka hadlayna wuxuu yidhi sida tan waa ilaahay mahadi ilaahay baynu u mahadnaqaynaa marka hore mar labaadka waxaan idinka mahadnaqaynaa sidii hore loo sheegayba maanta soo dhaweynta iyo kalgacalka Burco aanay u kala harin marka la leeyahay madaxweyne soo dhaweynta madaxweynuhu hebel ma aha xisbi gaara ma aha waxa uu saastaantii qarankiina soo dhaweynaysan dhammaantiinba waa ku mahadsantihiin waa wada hegeysta waxaan ku darayaa meeyarku wuxuu waa magaaladii ragga waxaan ku darayaa waa magaaladii ragga iyo haweenka qaaliga Burco intaa markaan ka gudbo maanta inkasta cayadu kulushahay dhowr qodob baa ka hadlaya marka koowaad halkan iga horreeyey wuxuu ka yidhi dad baan ahaa Burco way ku mudaharaadaysaa horta walaalayaal mudaharaadku hadduu salmi yahay oo aanu khasaarayn u dhalinayn ra'yigaaga ra'yi ka duwan inuu qofku cabbiro ama uu ku yidhahdo waan kaa ra'yi duwanahay waa taynu ku dhismayno oo waa tala wadaagga ilaahay baa dadka fikirkooda kala duway laakiin mudaharaadkii mucaaradka hadduu ina khasaarinayo uu dhibaato inoo keenayo kaasi waa xaaraan waxaanu leenahay saddex xisbi oo ra'yigoodu kala duwan yahay oo haddana dalka wadale oo haddana dalka wada maamulaya ceeb ma aha inay xisbiyadu kala duwanaadaan waxa ceeba inaynu qaranka wada dhisi weyno inagoo xisbi ah Yaasiin Cabdi Xaaji Cali TV-ga caalamiga Universal magaalada Burco